qoraaga caanka ah marna ah abwaanka Soomaaliyeed ee sida weyn looga yaqaano gayiga ay Soomaalidu degto Axmed Faarax oo ku magac dheer Idaaja ayaa waxa uu maanta soo gaaray magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. abwaanka oo wareysi siiyay TV-ga caalamiga ee Somsad ayaa waxa uu nooga xog waramay safarkiisii ku aadanaa magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn iyo qaabka loogu soo dhaweeyay deegaankani Buuhoodle. abwaan Idaaja waxaad tahay abwaan si weyn looga yaqaano deegaanada ama gayiga Soomaalidu degto waxaad maanta ku sugan tahay deegaankani gobolka Cayn xilli maad soo gaadhay halkan xalaan waxaan ka imid Gaalkacyo iyo Nairobi qaabkee lagu soo dhaweeyay magaalada Buuhoodle abwaan si wanaagsan oo aan la malayn karin oo aan filayayna oo ma aha wax cusub markii ugu horreysay Buuhoodle aan ma aha laba jeer bay iga horeysay oo aad u kala fog markii ugu horreysay waxay ahayd 1923 markii ku xigtana waxay ahayd 2001 haddana waa 2013 markii saddexaad si wanaagsan ma lagu soo dhaweeyay dadka oo idin وانا ضد يعني وضن اقان ودير يقولون يقوم عصب قولون marka kama sheeganaya abwaanka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ururinayo gabayo ay tiriyeen suugaanyahanin caana oo qaarkood hadda ku nool yihiin magaalada Buuhoodle. hawlahan u socdaa waa hawlo cilmi baaris oo ku saabsan rag deegaankan u dhashay oo gabi jiray hadda ka horna waxaan u imid markii ugu horreysay aan imid Ismaaciil Miran raadinaya gabayadiisa buug baan ka soo saaray markii ku xigtana aan Carab buug baan ka soo saaray haddana Samatar Baxnaan gabayadiisa iyo Ismaan Baxnaan iyo ragaas iyo Cali Dhuux iyo cid aan dhaafay hadda ma jirto wixii suugaan sheegtay kara oo idilha magaalada Buuhoodle ayaa waxa ku nool suugaanyahaniin fara badan oo ay ka mid yihiin abwaan Cismaan Baxnaan Ambaro Nuux iyo waliba abwaano kale oo iyagu geeriyooday alla naxariistii jannaha ka waraabiye isla markaana ay ka mid ahaayeen abwaan Aadan Carab oo si weyn looga yaqaanay gayiga Soomaalidu degto Ismaaciil Mire Samatar Baxnaan iyo waliba kuwa kale oo halkan aan lagu soo koobi karin isla markaana ka tagay gabayo taariikhiya oo lagu xasuusan karo. Cabdi Casiis Aadan Jaamac Somsad Buuhoodle.